rabay adiga Soomaa ina dhaqtarka u laabata laga rabay ina biyo cabto inta baraagta ag tagto biyo ka dharagto ma laga rabin biyaha waxaasi u rooyin lagu yiri Soomaa waxay u daran yihiin inay jiraan dhaqtarka u laabo sheekhana waa saas oo kale sheekha marka ka dhageysatid oo mufti ah oo qof u jawaabay oo mas'ala fatwoonaya marka dhageysatid fatwadaas inta sideeda u qaadatid adna aqrato aadna qaadato waxay la mid tahay in cidaada dariska kula haday dhaqtar aadaan oo rajeeto loo soo qoro oo anigana wallahi diifay ahay rajeeto baa lagu soo qoraa kan aan soo gato daawada aadna daawada ku soo gadato ma ku caafimaadee daawada hebel loo soo qoray hadaa aadna qaadato oo hebel ya ma ku caafimaadaysaa tii la mid tahay sheekhu markuu qof u jawaabayo qofkan muxiidkiisu ka jawaabaya fatwadu waa waaqi'atu ayn la yu'ammam lama ta'miimiyo diintii islaamka waxaa ka soo socda khalal xoog laha ka soo socda social media aniga rajo kama qabo nimanka dadka inta meesha nin ahlu sunnah wali qof inta meeshan soo saaray faaqidaya aniga ma arkin nimanka dadka inta meeshan ku soo dhagsada dadka faaqida ma aragti oo kaamirada luuqa la gala luuqyada kaamirada ha la gelinin noo imaada banaanka isoo kaana keena aan wada hadalno kitaabaan isla soo baxno ninba hadda inta meel galo warka soo dhageysto uu yiraahdo comment iyo like iyo share oo ku raadiyo waxaas diin ma ciyaalkii TikTok oo kale aan laga dhigay haddaad rabtaan in mawlidka laga sheekaysto oo inuu sax yahay inuu baadil yahay la ogaado isu kaana keena haddaad rabtaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodiisa asagu inuu keli la yahay aanagu qabnaaye inaad barataan haddii aad doonaysaan noo imaada isu kaana keena waa isbaraynaa maantaan mikrofoonka haya waa ka faa'iideysanaa Soomaaliya waxaa jirta xadiis dadka lagu qarribay si xun looga dhaadhiciyay lagu gaalaysiinayo dadka dhan xadiiskaas waxa waaye وإذا سألت فاسأل الله حديث نبوي صح ما هو يا ضد قبل حديث كاس النبي محمد رسالة وأسوة وجهها عالم كواي يا غلام إني أعلمك كلماتي وحديث كل من بدايتي إلى نهايتي وحديث تصوف إخلاص كهذا لا يوا ما بدل السكران قف صوفي إلهي أقاين ما بدل السكران وتبطل إليه تبتيلا قفها فهمك الحديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك ما فهمي أنت لازم فهمك كران إلا مضافة لقدري وحوال السمي ما بقى من سنة وظاهرية وحشوية احفظ الله سواء الأب إلى لنا يا إلهي سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك أوامرت إلهي إلالي نواهيد إلهي إلالي إلهي أدينا حق دورة هذا دورة إلهي كربت أديك دورة إلهي إسكله أديك إلهي إلالي سبحانه وتعالى أمره ونهيه كو إلالي أنت أسكلي ما إلالين أمر نهي من تجنانينا ما وإلا ترقي وإن كر الله صعب تعرف إلى الله في الرخاء تعرف إلى الله سي إلهي سبحانه أصابي أبو ري أو حشويدي نمك عقلي مسكين كدين تكون فسير جناوي تعرف إلى الله إلهي اصبر في الرخاء يعرفك في الشد حديثك ما فهمي كرتان أنا أوصل حريستان معنا حديثها فهمي كرتان والله إنه صنعين تعرف إلى الله إلهي اصبر في الرخاء مواقف مرك الله كون نعمدي سساوي نقنتو الله كفيرنا في الرخاء يعرفك في الشدة بشر كودن قال إنسان قال إسلام وحي كم ذي سنين إلهينا أقول حريصتا يا فإذا مسه الضر فذو دعاء عريض مركي بلايا تابته أي إلهي أصور ربي ومركز إلى المكتب ما معنى كلا لقى ربا الشيخ إلهي هكو تقناض عدان رينا ذير كان خير الله سيه مجلس اللي يسوي المكتب مركز واحدة علماء الله نين ربي أتوغي هاي ربي هنو توغو نين إلهي أتوغي هاي وأول ملائكة وريا حد هذا الكاس وحيرا إلي كومنتي كراديات ملائكة إلهي عدك قفك ويتقانا يا ربي مركز تراهي ملأوا لعلها كل جيسنا مركز وحي كله صوت مألوف عد الله يقانا وعدك الواقع إلا أولا لقى قبرت يا ربي مكت مركز يقود بنا يا الحاجة إلهي سبحانه وتعالى كاقا شفيعة
markaas alle ugu xaajadiis inaan ilaahayba bari jirin ya rabbi markuu yiraahdo wuxuu ahay qofka dhawaaqay leey ya malaa'iktu way ku yaqaanaan ta'arraf ila allah ilaahay isbar qumleelku istaag rabbiyowda badi ilaahay isbarniyo makhluuqa soo dhaxbax mubaarazo ina ilaahay barata banaanka ugu sabr haya ma waxaan fahmi karaan xeebaan u sheegaya yaarifka fi shidda ugu dambeyn marka وإذا سألت فاسأل الله حديث كماش أوقع عيارين وماشان إذا سألت فاسأل الله ما هي كده قال لما معنى يكون فسرين علماء الإسلام كان أيسن رالك أهين أنت علماء الإسلام كلا جارين شعب كالصومالية المسلمين تا أيام أبن دقيقة لما معنى أو اللي من كاسو حديث كوكو فسرين والله بدأ معنى مثل حوليه إذا سألت فاسأل الله أصوليين توحيد هذا أفعاش ونكرات فعل والباء يحمل في خفاياه مصدرا ومصدر كنوا منكر في الغالب محل يرمرك الأفعال نكرات والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم ما يقص اسمه فهم سنة لكن وعممان واحد إذا سألت هدي أدوح سؤالا ليسي وحقون وحيروان هالنقضين أساسي كيني حديث شاسو كينا سوا waxay doonaan ba noqdaane hadaad wax su'aalanaysid fas'al Allah alla weydiiso waxaasi waxay ha noqdeen wax weyn ha noqdeen ilaah weydiiso wala tas'al ghayrahu hadithku kuma qorna ku qoranta culimada cid kale waxba ha weydiinin kuma qorna laakiin macnahaasi ku dareen waxay dhaheen hadithkaasi wuxuu na barayaa inaan alla maahane aan qof kale la weydiisin been miya maswarun xadiidka ma nabar asaas xadiidku wuxuu ku yiri idaa sa'alta haddaad wax su'aalanaysid adigu cidna wax su'aalanaysid fas'al illah alla wax weydiiso xadiidku wuxuu kugu irshaadiyay ina ilaahay wax weydiisato sooma ha wala tas'al ghayrahu xadiidka inta ka soo gashaa inma aadaatu xasri ma ku jirta xadiidka إن إذا سألت فإنما اسأل الله لما دهن أيها كدر الجيب كودا واي نوغادك مركا تودا نوغوت هداد عد وح ويديسنا يسد إلهي ويديسو قفك لو وحها ويديسنا ساسا دي لغادك مركا شيخو وحان ربا بيهاس إن ليسو غبتو سؤال ماها وقالوا بيسو ماها يا باورك إي جوجي هداد تراعونك بجاج تودا سألت غير ربك هذا حسؤاشي قف إلهي هاي هذا حويديسي وقالوا لي سوما هل قف إسلام أوجا هرب ما أوجا تجي مايان ضد كده وقالوا لي هذه حديث كاس معني سلقات نن أيها كمية حرو جامعات دكتور وفهم حديث كسدان معلم كيس يا سجى مناظرك بالله معلم كيس سجى مناظرك بالله محور وين كم مناظرودان إلهي cid aan ahayn wax ma tari karto waxna ma diidi karto annaga ba sida aaminsan laakiin sida asagu aamina khalada marka lamana weydiisan karo waxba doodaas ay rabaan inay soo galaan labada kursi markay soo fariisteen oo inta meeshii aysan imaanin isi salaameen macallinkii kitaaba wata qofka cilmiga yaqaanana kitaabaha waa jecel yahay waqti xilligu wuxuu damcay inuu kitaabka idib aan arkay waxa ku soo dhacday mowduuca munaadarada oo ka balansanaayeen شبوير مرك قري عيالك حمر عندنا استوريا كدكت شب شاسو استاغ معلم كيحور حكو دحاي مناظرada iga adkaato anagoon doodii gelin aad munaazaradii iga adkaato sababtoo ah hadaan ku weydiisto waxaan damcay kitaabka aad hayso in arko hadaan ku weydiisto kitaabka oo ku raa idib macnaheedu waxay noqonaysaa ilaahay cid aan ahayna wax weydiistay saasoo ay tahay hadaad isiiso معدي غير الله بعد نقول يساوي أنا مذهب كيجي أنا وتر هداد إيدي دنا مانع غير الله بعد نقول يساوي مركب ميلان كوف كذا جروايو مناظرة أنا أسعني ميلان وقف كذا بجروايو كل جد حديث كان مركب إذا سألت فاسأل الله لك لي وحسؤاله عد كلنا وحبها سؤالين وحس أدون يساوي وحوين إيه وحير وحي دونان ها هذا يعني قفان إلهي إن هداد وحويدي ستوا قالوا ذي
dadka tuugsada iyo kuwa taleefonka isu dira iyo kuwa isla hadla iyo aabbaha iyo hooyada iyo gabadha iyo cunugeeda kulli gaalay noqonaya ilaa waxba isweydiisteen saas ka soo baxay waxay dhaheen maya kaas kama wadno saas kama wadno yaan been la idiin sheegin annagu saas ma ka wadno been yaan la idiin ayaxa ka wadaa soo dhawow tafadal maxaa ka wadaa waxaan ka wadnaa idaa sa'alta haddaad su-aalanaysid fima laa yaqdiruhu albashar dadku waxaysan awoodin haddaad su-aalanaysid dadku waxaysan awoodin cus baan kaa rabaa cidda dariska in la yidhaahdo maanta saaxiibkaa teleefon u dirtoo tiraad baawraac isoo tuur inaad cidda biilkeeda nin weydiisato inaad maaragtay $100 lagu soo tuuro waxaas wax dash basharku oo ogol yaha waaye ilaahay wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa isu kaalmeeya wanaagga iyo samafalka waa la isu taageeri karaa kuwaas waa la isweydiisan karaa haye maxaa diideen waaye waxaan dadku awoodin maxay yihiin waxaas jannada iyo naarta ayaga u waaweyn soo dhawaada marka haddii taas diin ay idiin tahay caqiidadu waa idinka qaldan tahay dadka ha qaldinina ducaatun calaa abwaabi jahannam hadday taasu diin idiin tahay caqiidadu waa idinka qaldan tahay waxa yar iyo waxa weyn ilaaha iska leh culamada alla saas ma aaminsantihin waxa yarna yaa leh waxa weynna yaa leh yaa wax bixiyo yaa wax la su-aashaa allah subxaanahu wa tacaala waxa weyn haddaad saan waa shirki ilaahay arrimaha waaweyn bisuu ka shaqeeyaa arrimaha yaryarne dadkaa ka shaqeeya maalis shirki waay waxaas ilaahay koonkiisa alla maamushaana ka soo baxaysa khalad waaye caqiide xumo waaye teeda kale soo dhawaada waa gaalaysiin haddana saxaabadii aa gaalaysiiseen saxaabadii rasuulkaa ku gaalaysiiseen nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ninkii saxaabiga khaadimka u ahaa ee rabiic la oran jiray wuxuu yidhi